wiilka biyo ugu dambeeyey ayuu bad ku cabbay. wuxuu fiiriyey shabeelkii agtiisa jiifay ee dhimashada u dhowaa. qalbigiisa naxariista leh awgeed waxa uu cabitaankii yar ee uga haraysiiyey shabeelka. wuxuu madaxa shabeelka si tartiib ah ugu dhigay jilbihiisa isaga oo sugaya in geeridu timiddo. waxay bad dhex sabaynayeen nus sano. nasiib wanaag markii wiilku soo toosay doontii waxay istaagtay jasiirad sabaynaysa. wuxuu u booday dhulka wuxuuna qoday xidid cagaaran oo uu afka iska geliyey. dabadeedna wuxuu u dhaqaaqay bartamaha jasiiradda. waxa yaab leh jasiiraddu waxay ahayd meel ay ku badan yihiin meerkaats diinka yaryar. markay dareemeen imaatinkiisa dhammaantood madaxa ayay soo taageen iyaga oo si yaab leh u fiirinaya. diinku ma aysan weerarin. wiilku durba biyihii ku dhacay barkadda ayuu ku farxay oo si degdeg ah u cabbay. meel aan ka fogayn shabeelkii ayaa isaguna cuntadiisa ku raaxaysanayay. diinkuna yaab ahaan ma aysan cararin waxay keliya u fiirinayeen shabeelka. markii habeenku dhacay dhammaan diinkii waxay u kala yaaceen kaynta. shabeelkiina wuxuu dib ugu noqday doonta. habeen dhexe ayuu wiilku si lama filaan ah u soo toosay. markuu u gurguurtay barkaddii wuxuu arkay qashin iyo walxo kala duwan oo biyaha dul sabaynaya. biyihii waxay isu beddeleen acid aad u xoog badan. shabeelku wuxuu u fadhiyey si aamusan doonta wuxuu ka garanayay halista jasiiradda oo ifaysa. wiilku wuxuu goostay ubax. markuu ubaxii furay gudaha waxaa ku jiray ilko bini'aadam. wuxuu markiiba garwaaqsaday khatarta. subaxdii xigtay wiilku wuxuu doonta saaray dhirtii cagaarnayd iyo diinkii qaar wuxuuna u yeedhay shabeelka. shabeelkii caqliga badnaa wuu fuulay doonta waxayna mar kale u baxeen badweyn. markuu shabeelku gaajooday